khilaafku u dhexeeya wadamada qaar ee Carabta ayaa soo ifbaxay maalmoon ka hor markii dawladda Sacuudi Carabiya ay shaacisay inay xiriir ku jirtay dalka Qatar. Arrintan waxaa kaloo ay sababtay in dawladaha Imaaraadka, Bahrain iyo Masar ay qaataan go'aanka Sacuudi Carabiya ay xiriir ku jiraan dalka Qatar iyagoo u sababeynayo in dawladda Qatar ay xiriir dhow la leedahay ururka Al-Qaacida. Dr. Maxamed Deeq oo ah aqoon-yahan falanqeeya siyaasadda bariga dhexe waxa uu qabaa in dawladaha hadda khilaafka uu ka dhaxeeyay yihiin kuwii ka badbaaday kacdoonada ka dhacay wadamada Carabta 10kii sano ee ugu dambeysay. Waxa uu tusaaleeyay in dawladaha Yurub iyo Mareykanka ay ku faraxsan yihiin go'aamada ay qaateen wadamada qaar ee Carabta. Waxa dhacay dawladahaas waxay ka badbaadeen isbeddello badan oo adduunka ka dhacay. Ay kamid yihiin isbeddelladii dunida Carabta ee jamhuuriyadaha ay ku sameysmeen Iraq iyo Masar iyo Suuriya iyo Liibiya iyo Algeria iyo Suudaan jamhuuriyadahaas ayay ka badbaadeen afgambiyadii military ee kontameeyadii soo bilowday 60meeyadii Afrika iyo wadamada Carabta aad uga dhacay ka badbaadeen waxay ka badbaadeen dabayshii Yurubta bari dimuqraadiyadii markii Ruushku burburay 91dii dimuqraadiyadda adduunyada ka bilaabatay ee saameysay wadamada Carabtana Algeria oo kale 91dii waa tii doorashada ka dhacday intaan la afgambin quwadaha waaweyn ayaa ugu talagalay inaysan isbedel dhicin xataa isbedel dagaalka sokeeye waa nooc kamid ah isbedelka waa jawaab shucubta ay bixiyaan dagaal sokeeye xataa waa laga hor istaagay yani markii 90meeyadii 80meeyadii Afrika dagaalada sokeeye ka socdeen waa laga xayndaabay mandaqadan waa la xayndaabay isbedelkeeda wuxuu isbedel weyn ku sameynayaa adduunyada dhan oo Mareykanka ugu horeeyo ugu wacan tahay dhaqaalaha iyo xadaarada islaamka ee saldhig meesha weey. Dawladda Sacuudi Carabiya ayaa joojisay ganacsi kala dhaxeeya dalka Qatar waxa dhammaan balahkii duulimaadyada ka bixi jiray dalka Sacuudiga kuwaas oo tagi jiray dalka Qatar. Arrintan waxay sababtay in dalka Qatar uu suuqyo hor leh ka helo wadamada Iran iyo Turkiga. Sheekh Abdulxay Sheekh Aadan oo ah aqoon-yahan bartay daraasadda islaamka ayaa aaminsan in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku saxsanaa go'aanka uu ka qaatay wadamada khilaafka u dhaxeeyo. Waxa soo baxday marka arrintu say u dhigan tahay markii la fiiriyo inaanan beec ahayn. Soomaalidu waa dad gob ah oo xor ah sida Carabtu ay ku mahmaado tajuucul hurratu wala ta'kulu thadiyha. Xortu Soomaaliyana waxa lagu yiraahdaa hadii la dhimanaayo dhareerka waa la iska duwaa carabiga waxaa kaloo leeyahay idaa tusibka khasaasatun fatajamali haday baahi ku qabato isqurxi mowqif sharafeed marka maanta taaganahay oo ku salaysan xorriyad walaalnimo dad jacayl oo Carabtii wixii dhaxmaray aan ka xunnahay inuu dhaxmaro hadii ay noqoto kaala ila cadaadi walaalkay aan niri asbaab aan u cadaadino nooma muuqato waxaan noo taagan annaga oo ka xun inaad isku dhacdaan inaan dhaxdhaxad arrintaasi ka ahaano sidii hore arrintu noo ahayd inay noo ahaato tii waxaa laga yaabaa marka inaan canshuurteeda dhiibno waana ku talagalaynaa inaan dhiibno laan adduunku maanta wuxuu marayaa man laa yamliku quutahu laa yamliku qaraarahu qofkii aan quudkiisa haysanin go'aankiisa male waxaan muujinay marka inaan innaga go'aankeena leenahay oon dhihi karno walaalayaalow waad mahadsantihiin in muslimku iskaalmeeyo isgarab istaago hadba dhinaca uu leedo dhinaca kale oo garab siiyo waa xaq muslimku uu muslimka kale ku leeyahay hadaan saa isu kaashan karna aan isu kaashano laakiin aniga ayaa qayb kamid ah jirkeyga cadaadinaya laan hada qadar markii la cadaadinayo oo dawladda hada la tirinaayo ay cadaadinayaan ayaga ay is cadaadinaya dhamaadka kulankan ay isugu yimaadeen culimaadudiin madaxda ururada bulshada iyo macallimiin wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala Muqdisho waxa laga soo saaray war-saxaafadeed kaasoo lagu amaanayo go'aanka jamhuuriyadda Soomaaliya ee ka qaadatay khilaafka u dhaxeeyo wadamada Carabta. وأن البلدان الإسلامية وشعوبها ستكون الخاسرة من هذه التوجه الخطير كما حرصت على عدم الانزلاق وراء التصريحات واتخاذ مواقف متسرعة والتي لا تقوم سوى بتأجيج الاختلاف وتعميق الخلافات. وفي هذه الصدد يثمن المجتمع المدني موقف الحكومة حيال الأزمة الحالية بين الأشقاء وأن يكون دور الصومالي البحث عن المصالحة واستغلال علاقاته الجيدة مع